Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiina meel walba aad joogtaan iyo xaalad walba aad ku sugantihiin. Waxaad kusoo dhawaataa markaan wararkii ugu waaweynaa ee suuqa saaka laga hadalhayo. Wararka ugu waaweynaa waxaa ka mid ah ciyaaryahan Firmino, Pogba, Maddison, Havertz iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo Philippe Coutinho. Nadiga Bayern Munich ayaana markaan isku diyaarisay 75 milyan ay kusoo qaadatay ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaara kooxda Liverpool ninka lagu magacaabo Roberto Firmino. 18 jirkaas sidoo kale waxaa aad u xiiseynaysa naadiga Manchester City taasoo rabtay inay bedel uga dhigto ciyaaryahanka dhaawac muddada dheer uga maqan Leroy Sane. waxaana markaa wararka ay sheegaan Bayern Munich iyo City inay isku haystaan ciyaaryahanka lagu magacaabo Roberto Firmino oo weerarka ugu ciyaara kooxda kubadda cagta Liverpool. Sun ayaana maanta sheekadaas qoraysa Roberto Firmino in loogu gacan haatinayo dalka Germany ee Bayern Munich isla Manchester City. sheekooyinka lagu waaweyn waxaa ka mid ah Manchester United ciyaaryahan khadka dhex Paul Pogba ayaa markaana si shoog ah wuxuu u sheegi doonaa inuu iskaga hayaami doono clubka Manchester United xil ciyaareedkan kadib 12 bilood oo qandaraaskiisa ugu harsan. kaliya 12 bilood ayaa qandaraaska ugu harsan wuxuu rabaa markay dhamaato inuu iskaga hayaamo kooxda ka dhigaysa garoonka Old Trafford. sheekadan saaka waxaa faahfaahsan majalada lagu magacaabo Manchester Evening Standard. Manchester United waxay markaan aad u xiiseynaysaa ciyaaryahan Leicester City James Maddison 23 jirkan oo qadka dhex ugu ciyaara xulka England ayaana heshiis cusub qalinka ugu doognaadiyay The Focus ama Leicester City, laakiin markaan Manchester United weli kama xiisa dhigan ciyaaryahankan James Maddison. Express ayaana maanta sheekadaasi qoraysa. Liverpool macalinkeeda Johan Klopp ayaa markaan Bayer Leverkusen wuxuu weydiisanay ciyaaryahanka lagu magacaabo Kevin Harvetizian kaas oo qadka dhexe ka ciyaara wuxuuna rabaa inuu suuqa kala iibsiga markuu dib u furmo inuu soo qaato. Express ayaana maanta qoraysa sheekadaasi. Liverpool macalinkeeda Klopp ayaa markale sidoo kale wuxuu xiiseynaya Philippe Coutinho in dib ugu soo celiyo kooxda kubadda cagta Liverpool kaas oo imika amaah ugu maqan kooxda Barcelona wuxuuna joogaa naadiga Bayern Munich Anfield ayuu rabaa in dib ugu soo celiyo ciyaaraha Philippe Coutinho. Star ayaana sheekadaas faahsan. Napoli ciyaaryahankeeda Khalid Koulibaly ayaana markaani waxaa aad u xiiseynaysa naadiga Manchester United waxayna ku rabtaa 127 milyan ayaana miiska ay saari kartaa ku qanci kartaa naadiga Napoli ama Mafia dalka Talyaaniga. United-kana waxay rabtaa inay waaxda daafaca ay aad iskaga dhisto. Khalid Koulibaly ayaana u aragtaa inuu muhiim u yahay kooxda Manchester United. Mirror ayaana maanta sheekadaasi daawacaysa. sheekooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ah ciyaaryahan Paulo Dybala isagana waxaa la leeyahay inuu heshiis u kordhiyo ayaa laga yaabaa kooxdiisa inkastoo bishii Janaayo la hadlayay inuu iskaga hayaami karo kooxda kubadda cagta Juventus. tan iyo markii kooxda Cristiano Ronaldo Paulo Dybala ma haysto hanaankii wacnaa oo hore u haystay ciyaaryahankani, balse markaan waxaa la eegayaaba in uu heshiis cusub uu qalinka ugu doogo ciyaaryahanka lagu magacaabo Paulo Dybala kooxda kubadda cagta ee Juventus. wararka kale ugu waaweyn ee maanta suuqa waxaa ka mid ah Bayern Munich ayaa markaan kusoo biirtay dagaalka loogu jiro ciyaaryahanka RB Leipzig ee daafaca ugu ciyaara ninka lagu magacaabo Toyota ciyaaryahanka lagu magacaabo. wararka kasoo baxaya gudaha dalka Germany ayaa sheegay Bayern Munich ay kusoo biirtay kooxaha Barcelona iyo Arsenal raacada loogu jiro daafaca RB Leipzig Toyota. ciyaaryahankan Toyota ayaana ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican RB Salzburg ayuuna kooxda RB Leipzig ugu soo biiray kadib bandhigii wacnaa waxaana markaan aad u xiisanay qaar ka mid ah kooxaha ugu weyn qaaradda Yurub. Bayern Munich ayaana kusoo biirtay hore waxaa aad u xiisanay Barcelona iyo Arsenal markaana Bayern Munich ayaa u aragtay in ciyaaryahankan uu ku haboon yahay garoonkeeda. sheekooyinka waxay ahaayeen wararka ugu weynaa suuqa daawadayaal saaka. waad mahadsantihiin daawashada. hanaga ilaawa subscribe, like, share, comment